السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوتيوب channel ka daawanaysan waa fihi macaadil qaybteen hore waxay noo maraysaa iyadoo faraantiga loo kaliya faraxsan tahay kadib waxaan aragnaa inay imaaday shirkadda waxaan lagu dhahayaa kambaniga cusub ayaa lagu wareejiyay hadi kadibna waxaad la shaqeyn doontaa mudanaheena CEO aydan midaas way ka xumaanaysaa ugu dambeyn gacanyaraha CEO ayaa soo wadaya wuxuuna keenayaa shirkadda aydan gacanyaraha iyo cabaar la sheekeysanaysaa kadibna waxa lagu soo dhaweynayaa xafiiskeeda aydan markay xafiiska gudaha soo gashay tiyaatiya uu farxaysaa waxaan ku dheesay riyadeyda waxay ahayd xafiis qurux badan aan fadhiisto maanta waan fadhiyaa ayadoo faraxsan waxa uu imaanay CEO waxaan ku dhahayaa ma ka heshayne aniga hadda kadib waxaan diyaar u ah wax ku raalgeliyo oo kaliya inaan sameeyo adigana waxaan rajeynayaa aniga waxaan ku sameeyo inaad ku faraxdid kadibna wuxuu arkayaa faraantigeeda wuxuu ku dhahayaa faraantiga maxaa waayne aydan waxay ku dheesay maxaa ka qusaya shaqsiyadeeda asigana uu ku xanaaqaya wuxuu ku dhahayaa faraantigan soo bixi yaana ku geliyeen aniga la antad miya faraanta lagu geliyeen aydan waxay ku dhahaysaa ma adigan ka mar qaadanayaane asigana uu ku xanaaqaya wuxuu ku dhahayaa midan kuma ogolaanay aydan waxay ku dhahaysaa iga dhamaa meeshan way ka soo tagaysaa kadib tiyaan waa la soo waxaya waxaana soo waxay saaxiibkeeda wuxuu sheegaya walaashiisa inay xanuunsan tahay aydan way ka xumaanaysaa maadaama saaxiibadeeda ay xanuunsan tahay kadibna banaanka ay u soo baxaysaa markay banaanka soo baxdan meesha waxa kula kulmay saaxiibkeeda CEO kadib waxa ku dhahayaa murugtina kula qaybsadayaan halkan u imaado laakiin faraantigan xun dhib ayuu iga hayaa ku bariyaa iska bixi aydan waxay ku dhahaysaa qaf ay galiiman rabo inaan niyada ka jibiyo waxaan rabaa inaan isguursano mardhow kadib meesha ay ugu dhaqaaqaysaa dhanka kale waxaan aragnaa tiyaan saaxiibkeeda inuu madaxa wareerayo kadibna uu suuxayo markay isbitaalka imaado waxa saaxiibadeedu sheegaysaa in walaalkeeda suuxay kadib albaabka ay ka soo galaya waxaan ku dhahay aniga xaaladeedu way fiican tahay kadib walaashiisa haba ay siinaysaa tiyaana waxay ku dhahaysaa caafimaad ayaan ku rajeynayaa kadibna tiyaana ayaga ay fiirinaysaa kadibna meesha ay ka soo tagaysaa siin wuxuu arkayaa tiyaan inay baxday kadib wuxuu go'aansanayaa tiyaan inuu la kulmo wuxuuna u tagayaa gurigeeda horteeda waxaan ku dhahayaa walaashay way xanuunsan tahay waxaan ku qasbanahay wadamada sinanaado oo xanuunkeeda la soo tacaalo ahaan aniga xitaa ma fiicnayo ku dhahayaa waxaan u baahanaa wax walba inaan soo xaliyo intaasna adiga inaan kula wadaaga ayaan kuugu imaadayo ku dhahayaa aydan waxay ku dhahaysaa waa cadi go'aankan adiga yaa iskale kadibna wuu sii baxayaa aydan waxay ku dhahaysaa istaag waxayaad ilowday kadibna waxay u soo bixinaysaa faraantigiisa waxayna ku dhahaysaa hadiyada marwo inaad iiga tagto kadibna asiga xanaaqsanayo xoog ugu qaadanaya aydan run ahaantii midaas way ka murugoonaysaa muddo kadib iskuulka woomada iyadoo joogtay waxa uu imaanay Siyuun wuxuu ku dhahayaa sidee tahay aydan waxay ku dhahaysaa waan fiicanahay asigana wuxuu ku dhahayaa waxa rajeenaa inaad hadirtan ay fiican tahay yacni aad ii xanaaqsaneen kadib ayadu way ku qoslaysaa waxaan ku dhahaysaa maxaa ka wadaa asigana wuxuu ku dhahayaa inaad i cafisay aydan way ku qoslaysaa waxaan ku dhahaysaa dan ku cafin leen halka ma joogi lahayn asigana wuxuu ku dhahayaa midan ku faraxsanaa waa midaas aydan waxay ku dhahaysaa ma laga yaabaa farxadaada inay farxadeeda ay noqoto asigana wuxuu ku dhahayaa maxaa diiday hada kadibna waxaan u baahanaa aniga farxadeeda inaan ilaalsado balan waa mar walba waan ku ilaalinayaa kadibna ardayda oo dhan way wada saaxbinayaan maalinta xigtan wuxuu keenayaa xafiiska waxaan la badayaa ruurun waxa lagu dhahayaa gabadhan adiga ay kula shaqeyn doontaa hada kadib ayadan way ku farxaysaa waxaan ku dhahaysaa soo dhaw shirkadu waa shirkadaada kadib markay soo bixaysaa waxay dhahaysaa doqomada xunta meeshaan ma iiga daw keenayne waxaan ogaanaynaa ruurun ninkan hadiyaad u jeceshahay laakiin asiga ma jecla waxaan u haystaa saaxiibadiisa oo kaliya inay tahay aydan gabadha markuu keensada hadiya ugu xumaanaysaa midaas haweenka xigta tiyaaniisa iyo waxaa lagu casuumayaa xaflada hadiyaad weyn xafladaas ayayna kasoo qayb galayaan ayagoo lamaanee dadka dhanna way u hambaliyeenaa waxaan ku dhahayaan waa isku nuuraysiin aadna way iskugu qurux badantihiin aydan midaas way ku farxaysaa wayna qoslaysaa markay arrintaas maqasho wixii markii la gaaray CEO waxay u sheegaysaa ayada disaandhig inay aad u jeceshahay inay horumar ku gaarto asigan wuxuu ku dhahayaa waad gaaraysaa sababtoo gabar geesiyad ayaa taa geesiyad walbana horumarkeeda way gaartaa maalinta xigtan shirkadda ayaa waxa uu wacay saruuro waxaan ku dhahaysaa aniga waxaan kaaga baahanaa howlo badan aad ii qabtid aydan waxay
ku dhahaysaa diyaarayaan waa wax walba inaan kuu qabto kadib waxay ku dhahaysaa adiga horta shirkadan horumar ayaad ka gaaraysaa sababtoo ah shirkada mudanihii kala wadayay dhan ayaa laabtaada ku jiro weliba si fudud ayaa laabtaada kusoo gashatay aboo adiga aadamateeda ayay ku dhahaysaa kadib tiyaan waxay ku dhahaysaa aniga hadalkaaga maanan fahmin runa waxay ku dhahaysaa hal su-aal aan ku weydiiya howshan kugu culus tahayne ayadan waxay ku dhahaysaa ma iguma culuso waaye howshaad qabsa ayay ku dhahaysaa kadib niyad ayay ka dhahaysaa doqomad dheh kadib saaxiibkeeda iyo habeenkii waxay ku dhahaysaa ruru mar walba waxay iska dhigtaa qof adag laakiin aad iyo aad ayay u jilxan tahay asigan waxaa ku dhahaya arrimaha ruru iyo waxyaabahaas inaan iga deysid aniga adiga aan wada sheekaysano aan nolosheena aan ka wada hadalno kadibna laabta ayuu gashanayaa habeenkiina sidaas ayay u wada seexanayaan subax marka waa u buriyeen waxaan dhagnaa rurune wax u soo dirsatay kadib wiil jiansuula ayaa soo hor istaagaya ayadan way fahmaysaa waxaan ku dhahaysaa jiansu adiga miyaane jiansuuna waxaa la lahaa wiilay ayada taqaana yariisa inay wiilkan wax isku yihiin kadibna waxaa ku dhahaya haddaad daasanta aniga ayaa ku dhaweynaya sida ayaa kusoo dhaweynaya wuxuuna keenaya meesha u baahneeda ayadoo markaas moodada kasoo degtana meesha waxaa imaanaysa ruru waxayna ku dhahaysaa maxaa halkan ka socdane kadibna waxay ku dhahaysaa adigoo wax lagu diro toos u imaad mabla arkaa miyaane kadibna tiyaan way suuxaysaa wiilkan wuu ka naxayaa wuu soo qaadayaa kadib wiilkoo sii wada gabadha ayay arkaysaa ruru kadibna sawiro ayay ka qaadaysaa sida hadhow cadeen ugu dhigato ayadan arrintaas samaysa run ahaantii aad ayay u qanacsan tahay xafiiska siyaana waxaa la keenayaa bashqada markoo kale furan wuxuu arkayaa sawirka markuu arkana aad iyo aad ayuu u xanaaqayaa kadib xafiiska ruru ayuu imaanayaa ruruna wuxuu ku dhahayaa banaanku bax qoftaan ayaa la hadlayaa kadib taleefankiisa ayuu u dhiibay waxaanu ku dhahayaa sawiradan maxaa waaye ayadan waxay isdhahaysaa wax fahansii waxayna ku dhahaysaa jiansu walaalkiis yariiska ayaan isnaqaanaa ayadoo waxyaabahaas dhan uga jawaabina asaga ayaa ka dhex galaa waxaanu ku dhahay maxay taa qosolkan si daacad laya wax kuu weydiinayaa ayadan waxay ku dhahaysaa waa saaxiibkay matira ayuu ku dhahayaa ayadan waxay ku dhahaysaa saaxiibkay yariiska ahaa waaye waxyaaba inay fahansiisa ayay isku dayaysaa laakiin asaga uu ku qaylinayaa wuxuuna ku dhahayaa doqomad ayaa taa baac ayaa taa wax ma fahantid mar walban waxaa jeceshaha aniga inaad iga masiirsiisid wax walba inaad samaysid ayaana jeceshahay tan kale ruruna waxay kasoo dhegeysanaysaa banaanka kadib wuu ku xanaaqaya wuxuuna ku dhahayaa iga fogow aniga sidaada banaan maba ku jecelayo ku dhahayaa doqomad ayaa taa waxna ma fahantid kadibna ruru ayaa u imaanaysa waxayna ku dhahaysaa isteji nimanka dhan waa sidaan wax wanaagsanna ma ku jiro habeenkii markii la gaarasiiyo asigoo baarka joogayo wuxuu imaanayaa wuxuunu keenayaa sawir wuxuuna ku dhahayaa sawirkan qofka qaada waa adiga way xanuunsata markay suuxda kadibna wiilka garab ayuu siiyey adigan si xumaad ayaa ugu soo qaada aniga xafiiskayga ayaan u soo dirtay ayadan waxay ku dhahaysaa adiga ayaan kuu baahanahay anigoon kaa dharganaya ayada iska aada ayay ku dhahaysaa weliba anigoo kuu baahan xitaa xafiiskayga ayaad iigu keentay adeegaaga asigana wuxuu ku dhahay ayada ayaan jeclahay aniga waxaan kuu ogolaa adiga inaan saaxiib kaliya kula ahaado wax kalan labadeena nima dhexmari kara ee iga fogow ayadan aad iyo aad ayay u xanaaqaysaa meeshoo dhan way ka tegaysaa habeenkiina wuxuu imaanayaa tiyaan wuxuuna ku dhahayaa iga raali noqo ayadan way ka xanaaqaysaa meel ayaan iska fadhiisanaysaa kadibna wuxuu ku dhahayaa halkaan fadhiiso tiyaan isku day ayuu ku dhahay nolosheeda inaad fahantid aniga waan xanaaq badanahay waa runtaada laakiin waan ku jeclahay ayadan intaas markay maqasho weyba iska qoslaysaa haweyba iska siinaysaa doqonsanaatan maalinta xigta gabadha guursan rabay hooyadiis ayaa soo wacayaan waxayna ku dhahaysaa gabadha mardhow guurkeen ayaa dhici rabo adigan waxaan kaaga baahana inaad halkaan imaadid laakiin asiga wuu fikirayaa markuu intaas maqlo habeenkiina gacalisadiisa ayuu waqti la qaadanayaa kadibna wuxuu ku dhahayaa hadiyad ayaan kuu keenay wuxuuna ku dhahayaa hadiyadan raaligelin waaye mana rabo weligaaga inay agtaada ka dheeraato ayadan way ku farxaysaa hadiyad ayaana fiirinaysaa dhanka kale tuuladan waxaan aragnaa gabadhiina boorsadeeda soo xirxiratay habartan way u imaanaysa waxayna ku dhahaysaa gabadheed xaggee u socotaa ayadan waxay ku dhahaysaa inta guurkeyga la gaarayaa rabaa gacliye inaan waqti la soo qaato baaburta ayay maxsalaameynaysaa baaburka ayayna la heshiinaysaa kadibna baaburka ayay soo raacaysaa subaxiina waxaan aragnaa magaalada kadib waxaan aragnaa tiyaan iyo saaxiibkeeda oo meel isla fadhiyaan siyuu saaxiibkiisa ayaa u imaanaya waxaanu ku dhahayaa arrimo muhiim ayaan kuu hayaa asigana wuxuu ku dhahayaa waayahay dhanka kale gabadhii siyuu lahaa way imaada magaalada waxayna raadinaysaa tiyaan isku markii shirkadiisa ayay imaanaysaa shaqaalaha ayayna weydiinaysaa shaqaalahan waxa uu sheegaysaa gabadha guursaraw inay tahay ayagan
way la yaabaan waxaan dhahayn gabadha maxay ka wadaa waxaas laakiin Tiana ayaa ka hor imaanayso waxayna ku dhahaysaa soo dhawo yaa raadinaysay ayadan waxay u sheegaysaa Tiana inay raadinaysay kadibna waxay ku dhahaysaa gudaha soo gal ayadan waxay ku dhahaysaa maanta dhan waan dal sidaan wax u raadinayay kadib Tiana markuu meesha ma shaqaalaha ayaa wax walba u sheegayso kadib gudaha ayuu soo galay wuxuuna arkayaa Tiana gabadha la sheekaysanayaan ugu soo xareysa waxaan ku dhahaysaa ma imaadayne asigan saaxiibkiisa ayuu joogsiinaya sida Tiana u boojeeyo kadibna wuxuu ku boojeenayaa feelal kadibna gabadha waxay ku dhahaysaa aniga isguursan rabna xitaa waqtina ay siisid ma ogashid miyaane asigan mar walba Tiana ayuu fiirinaya wuxuuna ka cabsanayaa arrimihiisa inay fahanto gabadhan waxay ku dhahaysaa waan ku xanaaqsanahay adiga qof xun ayaa tahay laakiin asiga gabadhan ayuu fiirinaya wuxuuna ka cabsanayaa inay arrintiisa fahanto kadib gabadha ayuu madax u salaaxaya gabadhan waxay ku dhahaysaa waan ku faraxsanahay inaad jeclaatay waxaan ogolahay inaan isguursano mardhow kadib Tiana arrimaha mashruuc markay soo dhimayso waxay u sheegaysaa mashruuc inay hadirtaan si qurux badan ay u diyaarinayso gabadhan waxay dhahaysaa aniga xitaa rooskeena waxaan rabaa si qurux badan in loo diyaariyo anigii siyuuna xiisa ayaan isku qabnaayay ku dhahaysaa kadib inay ku dhugto iyo dhaban ka shuminaysaa macaankayga aniga aad iyo aad ayaan xiisa kuugu qaba ayaan ku dhahaysaa hay qaaliyaashayda maxaa sugaysaan qaybteen saddexaad filimka halkan ayay ku dhamaatay waxaan rajeynayaa muuqaalkana ka heshaan insha Allah mac salaama.